jacayl hadimadiisii adigay horseedo halbowlaha digoyso igamana warhaysidii jacayl hadimadiisii adigay horseedo halbowlaha digoyso igamana warhaysidii eedo xaaladan intee baan ku jiri karayaa aan u dulqaadanayaa gabadhaydii maxaa kaloon samaynaa waxaan ogaaday inuu maalin walba u raaco xabaalaha oo ay halkaa isla ooyaan waa arrin cajiiba haa gabadha waa runtaa marxuunka aad buu u jeclaa ilaahay u naxariisto waa runtaa ma kula tahay marxuunka jacaylku u qaba inuu gabadha ku wareego maya ay aamin gabadhaydii adiga hortaa dumar fara badan buu yaqiin jiray waa u egyahay laakiin waxaa iga daran naagtu siday istiraahdo iyo quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda ha ka yaabin taas anaa ku huba inuu ku jecel yahay dumarkii hore u qun jiray taleefanka xataa iminka kama qabto ma feerayo waa runtaa sidoo adiga kuu barto wuxuuba yiriba muraha naagan ahayn ma doonayaba mana arki kara taleefana kama qabto xataa برنت waxaan gaaraynaa branchiga cusbaa ee compensationka maxaa ka wadaane waxa waa soo dhamay arintii magdhowga waxa dhiman oo kali inaad soo siixidid oo aad jeegaaga soo qaadato aad u mahadsan tahay iga raali ah waa ku dhibay wallahi waa ka xanaaqa hada waxa soo kale itiraad suur ma ogid adiga agtayda qiimaha aad ka leedahay allah ya ciise runta hadii aan ku sheegay dhibaato fara badan ayaan ka mar lacagtan si loo kordhiyo laakiin waxa kale ogaataa hantida adduunka oo dhammaajid kuma doorsanay shilka sababta uu dhacmo ogaateen waxaan ogahay maajid wax qalad inuu sameeyay diyaaradda markii uu kiciyay wixii ka dambeeyay engine ayaa shaqeyn waayay kadib diyaaradda badda ayay ku dhacday kullina dadka shahaadooyin dhimasho ayaa loo sameeyay seeligu ogaada taas sanduuqa madow waxaa jira sanduuq diyaaradda korkiimana wax walba duubaayo kaas markii la cadeeyay kadibna dadkoo dhan ay dhintaan ayaa la cadeeyay allah ya raxmo almuhiim bari 3 saacadood diyaar aan ku soo maro maxaa dhacay mana la qadinaysid miya hooy hadda la qada karso way baxdee hooyada madaxa iga saarantaa waa jeclahay laakiin dhibka jira wuxuu yahay hooyo waxay ii diyaarsan raashinka qaaska ah oo aniga jeclaa marka ayda gacanteedana waxaan ku sheegayaa qadada hooyada maanta ka jooga aad jeceshahay waxaan rabaa in arrimo kale oo fara badan kaala hadlo haddii ilaahay yiraahdo adiga markaaga maan diidi karaa zuhur waaya laakiin dooro duban ha ku jirta qadada mushkilad wiilka walaalkaan ka tegay dhibaato noo keenay wallahi maxaad kala jeedaa faahiimaa adiguna taa wiilka suura dhashay sheegaya suhuro waa ka ninkii ka dhintay xor bay noqonaysaa odaygii bay isku noqonayaan waxaad ku fikirin adiguna 15 sano horte goormuu soo noqdaa xabsiga ku jiraay naada miyadii loo deyn muntasir yiri hadii xukunka laga ogolaado dalaqdiisna uu soo ceshin karay naagtiisana uu ku noqon karaya iyana sidaa u ogeyn horta suura aad bay u najabsan tahay xilligan la joogo aad bayna u jeclaad ninkii maajidaha umana malayna inay ku noqonayso odaga faraga horta maxaa kaasiya naw gabadhu waxay ogoyso ayuunba soconaya ilaahay noo soo daaya xaajigeena aniga sidoo walaalkay u dhintaba murug ayaan la joogi lahay maxaa waaday turubka maanta dhan xabad qaldan la isu adiga waxa ka abu fakarayaan beeb maxaa jira waxa weydiiyo meeye injineerkii horta maanta ma arkin miidii intaadan imaanba maryahan ayaamaan aad buu kuugu socod badan yahay maystire wallahi waa ka shakiyey ma ilowda inuu yahay maajid saaxiibkiis saaxiib bay ahaayeen saaxiib lilaahi weliba haa saaxiib aad u isku dheer bay ahaayeen weliba hadda sidoo uu caawiyo walaalkay oo kale ima caawiyo walaalkay wuu yimaada deetan uu iska baxaa waa saaxiib lilaahi waa runtaa say lilaahina uu noqon karaa samow say waad fahmaysaa waxaan ka hadlayo miyaad waalan tahay fariid wuxuu jecel yahay gabadhu doona qodobada anigana sidoo maajid iga dhintayba nin kale kuma fikirin inaan guursadaba aamin uguma horreysid gabadh laga dhinto aroosta saawad iska leedahay waad qaldan tahay maajid wuxuu ahaa noloshayda qayb ka mid a marka arkay wiilkayga muraana wejigiisa maajid baa iga dhex muuqda aad buu ugu egyahay runaantii nahade turubka maa ciyaartii miinaan kaa badiyaa ka baqaysaa
salaamu calaykum وعليكم السلام maaragtay baabuur buluug ahoo laba qof ku saaran yihiin halkan marayay باور بلوغ ها باور بلوغ وحكى لنا وملا الظهر إيجارك عطاو دارا xagee mareen كاله انت كوجران واي ميدان haye hadda ma qaybta calaalka ku jiraan qabriga korkiisa gabartan aniga wajigeeda ugu yaalaabe si fiican uu igu yaala mana iga dhaqmay intaan ku arka kale amay qaraabihiin yee qaraabihiin isaga dadka ona ujeeda amay familka leeyihiin arkir alora dadta anigna qaraabana marka zuhra bas waxa calool xumo soo mari lahayd waa soo martay si kastoo calool xumaado ama isku marjiyaba qof maajid ka fiican oo calool xumo lama jirto waa ogeed sidoo ii jeclaha waa ogahay inuu ku jeclaa laakiin adiga calool xumadaada anigay caloosh iga sii hurinaysa adiga gabar yar ayaa tahay mustaqbalkaaga weliba uu ku dhiman yahay nin maqan meesha lagu tabo nin jooga ceebtiisa waad ogtahay taas hadalkaasi waa saxiix laakiin ani maajid ma iloobi karay zuhra nabigaada ku salliso aniga garabkaaga ma taagni aniga waqti walba kula jooga see waaye sheeko fiican baa meesha ka socotaa maxaa se codka hoos u dhig please lama filaan baan kugu noqday miyaa sheekadii oo inta way dhamaatay jacayl baa la bilaabay saan arko waxaa rabta maa sheegaade yaa waay gabartaan haye gabartan waxaa waay hadal dee sheeg ciddaan ahay mise ma sheegi kartid oo ma sheegi kartid inaan naagta ku meersanahay gabadha u maharsan ma adigaa gabadha u maharsane haa waa aniga tanacasta u mehersan isaga ee waxba la soconin wax isku fal please waxba ma fahmaayo aniga maxaanad fahmaynin ma anigan u jeedo wax walba arkaya ninkaagina uu dhintay oo anigu iminka wax walba arkaya ayaad leeda ma fahansani ma saasan anigu imoodanan nacas u ahay oo saas idin wada haysataan ba dhinacaan iga soo mar horta fiiri gabadhan maskiinta dareenkeeda dhowr dareenkeeda ah anigu miyaanan dareen lahayn oo qof bilaadan ahayn oon muhiim agtaada ka ahayn miya ifaansi waxa daldalaysoo dhan maxaanad fahminay sheeg warkaan adilaa maanta taxaysoo dhan anigu waxba kalama socdo anaa ku fahansiinaya miyuu jiraa qof 2 wiig laga mootan yahay oo saad u dhaqmaysa u dhaqmaya maxaad qalad aragtaa marwa sahra meeshani maaha meel la isku shukan suwa qabuuro meytiduna waxay mudan yihiin in la xushmeeyo waa ka soo dartay waxaana wax loo dul qaadan kara ma isku xisho sida waan idinka jiiday soo maaha hawlihiin idinka jiiday marka dambe ay soo casuumaysay aan idinka jiiday aan kala xishoono furid waa ku barya xaaskaada kaxayso keligay baan rabaa inaan iska joogo anigu halkaan se u hadlaysa ayada inta wadamaan adiga meesha cidlada kaaga tegaya anaa balay turtuuraya leeyahay keligaa noqo miyaa adiga adaa lugahaada adoo socda ku yimid yaa ku keenay inta adaa lugahaada ku baxay saasaad leedahay waa idin maryahay fadeexadda iga dahaya halkaani meel lagu fadeexeeya maahan sabax naama aniga adi waardiinaysa isiida waardiye maahan arrintan gabadhay baan doonayaan ka wasal gaadho oon ogaado waxa jira intaas ka badan ma dulqaadan karo waa idin baryaa bliis israaca socda naga soo bax marka adiga saaxiibtaa intaa ka baxdane taksiyaan ku rida waa shubtay saas inaa yeesho ma ahan qofkii inaa xushmaysid waaye yaa khasuura qoftaan madaxa iga cunta wallahi sanka iga saarneed maxaa dhacayna xaqay leedahay inay masayrto naagta aan masayrina dhiig malaha naag walba ninkeeda inuu masayrto xaq weyn maxaa jira aniga haddii aniga saaxiibtay tahay maxay ii soo dabagelay kalsooni ma jirta miya macno ma lahan cudurdaaray haysataa waa kuu doonan tahay maalin walba aniga adiga ayayna isku keen aragtaa sidaas darteed ayay kuu cabsanaysaa anigana ayadaanba ka cabsana sisan tags u saarayno maadaama ay kuu doonan tahay waa inaad adiguna tixgelisaa iyada oo aad xushmaysaa haddii ayada aan u cabsado zuhra adiga ma meel cidlaa kaaga tegaa soo adiga inaan kaa fikiran maha see waayo maya ani macno ma lahan fawsi aan wici lahaa barbalaan ma u s b a anaaba joogiye kaale soo kor
hadday isku dagaaleen le beriga hataa ogaan lahayd xataa ree akhiraadka inay soo baxaan aan ka cabsada ayagoo dhahayan waran ababiina iyahay samsuuriho mise geed camala meesha u taagneed say kaa naqata aniga anima geed camal mees u taagnahay aniga og tahay waxaa la dhahaa ababiina la dhahaa aniga xataa meedka marka la keena nin nasiya naag nasiya horanka sheegaan ku dhahay war aniga waa layga dambeeya aan ku dhahay warka ii sheeg hee maxaad soo fahantay gabartayna inay tahay gabarta ugu fiican adduunka gabarta zuuraha oo la bumbuunayna ay tahay gabar akhlaaq xun warka sii hay oomina allah ku oomiye gabadhi zuuraheed dooradin dahabka dhalaysay oo hadda laga dhintay ayadii nin kale dhulaa la wada jiifay waa la wada ooyhay ka warneen ayadoon sheekada mahad marayso naagti u dooneeday aa ka kor timiday asaalis galay qurtu baa la fiiri waa la buuqaan ku iri shimay qaraabaysa medkanigada mama baqine warkana sheegaysa baabiina sax miya ma iga hubtaa waralna hubin aniga afkayga sawga soo baxaya abo war kalan ku hayaa weliba waxaan arkaygo habbow isfiicay yaa waa sheegaa warkaas maqarinaya meedka ninkeeda korkiisa ninkan waxuu og yahay asuga godow ku jiraahe korkiisa baashar ka socda abarteedna waxayna dhahaysaa gabadhaydaa fiican waa sixiraysiin ayadana saasoo fadeexadan maba jooji karno waa bannaanka inaan dhigno waay fadeexadaas bannaanka aan soo dhigdhigno maya xaana wagadhiisa war unukaan saqamgulin nin inaaga siraacan waay yaa duqda markay hadlaysa inay sanka ka hadlaysaa u malaysaa waxaa ma ilowda faqrinimadii iyo wixii ay soo martay baahida markii ay ka baxday ee taajir noqotay ee kibar iyo waxay noqotaba inay sidaas ma dhici kartid baqashiishadii aan adaabta lahayn waa runtaa cayda jooji ceebna waa inaa caytintid gabadhaada ma u jeedid miya oon billinka ka dhintan yahay oo saaxiibkiis inta u kala wado taas ma u jeedid miya ceebtaas gabadhaydu adiga ee gabadhaadaba waa idinka sharaf badan هاي maxaa ka wadaa gabadhan ee ida dhashay waa xaaskeyga hor waxaan la samaahana naga daa waa qurine qura ceeb caleeg waaye annaga gurigaagaan joognaa ma aha inaana ugu taagtaagsatid waxaasoo kale ma fiicna ceeb waaye anagu badarta pressurkana saaraysaa orodoo inantaada qabsoo soo eeg adaaba indhahaaga kusoo arkaya oo labadaada indhad kusoo arkaya kii xumayna wuxuu rabaa inuu gabadhayda guursado yaa kaas gabar siisanaya hadduu xataa socon waayo waa wax xunoo kale marooge guur ah yuu guursanaa hooy aamus sheekada naga xir waa ku baryaa moogtahay dadkan inaan kaligay la noolahay moogtahay ma la socotaa war waxaan ayaga uma jeedid miyasay u hadlaayaan dadkay cunayaan waa dhurwaayo horta waxaan la yaabanahay yaa la guursanaa yaase guursanaa odagaada xumaa ilkahayo indhaha beelo doqoshkaa doonaya inuu gabadhayda aniga guursaday ka war yaa aabbahay ayaa guursanaya suuraa sooma waalnaan majnuun soo maaha ooma warkaasoo odaga ii keena caawa aan tagataan ku dhigo waa garanaya waxaan kana ka dambeeya waryahe hooy igceli kafaq wiilkayga balaya ku qaaday maxayd bahashaan bahalka cunaysaa nahadaa wiilka kac warhaadhaha markaa laftan oo kale maydinku fillaan weysa intaad gabadhayda sixirteen oo ad balaayoo dhan u maleegteen adinku maxaad idin xaggeed nooga soo dhacday yaaqay haddana walle caawa abaabiinow taan kugu dhigo timahaaga dheerdheerka iyo haddaan ku gogooyo waa arki doonta hayeena kayga ii warna hooy zuuro horteeda wejigayga fiiqda hooyo horta sheekada sore anigu fahmi laahayba sheekada zuura maxay tahay hooyo zuuro saaxiibkay lilaahi yaa qabi jiray maajidi anisaan isku heno hooyo dhegayso saaxiibkaa wuu dhintay suurana ninkeeda saas ugu dhintay marka anigu waxaan garan waaya waxaad hoosta uga jirtid anigu haddaan gabadh ahay waan ka hinaasi lahaa mooyaane cirkaan qaban lahaa waa ku sida hooyo waxaas wax caqligala maaha dumarku ma qaataan sheekooyinka caynkana naagunbaad ku loogan tahay aanad qabin waa ku sidee hooyo macan adiga ma sheekada igu soo bilowda haddana anigu sheekada khadiyan baa ka taaganahay maxaa qadiyaan ka taagan tahay gabadha miyay ku qasabtay adiga intaa raadinayay yaa gabadhan waa ay qasabtay maayo taleefankaas igu soo celcelinaysa argagixisa igu riday dee way saxsanta hadda taleefankuusa dirtama wax xun baa waa inay gabadhu ogaataa ninku meeshu ka taagan yahay hooyo gabadha markaan baranayo duruuf ay igu kaliftay aniga dhan markaas waa niyad jabsanay qalbi dhan mahayn niyada iyagu niyad jabiyo hooyo zuura ma fahamsani anigu aniga hooyo marka ugu horreysoon arkay zuura qalbiga iga gashay laakiin intaan waxba u sheegan waxaan ogaaday maajid inay jeceshahay mar hadday maajid jeceshahay maxaan samaynaa gentleman iska dhigaan islaha waan u daystamay adaaba afkaaga ka sheegay saaxiibkaaba jeceshay suura hadda kuma jeclo hooye iska daa dhibta waa ogahay saaxiibkay waxay u jeceshahay marka hore asagay baratay that's why aniga marka hore hadday bara lahayd saacadan waa iga fuji lahayd oo hadday saa samayso ninkeedu iminka dhintay adiga ku barato ma xishoonaysaba anigu aabbaha markuu dhintay 100 nin baa soo doonay anigoo gabadh yara waan diiday naxariis iyo jacaylkiisan ku noolayn lahaa haddana
hooyo waqtigiina jaceylka waagaas jaceyl ma ahayn hadda jaceyl rasmiyaa jiro gabadhan marka hore hadday i bara lahayd maajid meeshay ka baratay saacaddan waa isqabi lahayn waa isjeclaan lahayn anigu ma fahmiyo sheekadaada gabadhan iminka kuu mehersanee kuu doonan maxaad ka samaynaysaa ma garanayo ma garanayo waa maxay waa dhinacuun u saaco gabadhan dhinacuun hooyo nafta waxaysan rabin laguma qasbi karo bismillaahi raxmaani raxiim mididii waxaad sidataa iska dhig midida waa maxay masalan xaggee nooga timid i dhegayso anigii Khaliil baa wada hadalnay waanan wada sheekaysanay ma ogta horta maxaa kaasiyo maxaa ku hadasheen hee kaalena ku sheeg wuxuu yiri Khaliil inay aabahay suuro soo aroso lacagtan ka badbadatay uu noo soo qaado anigii aniga inoo keeno halka naagta uu kaga yimaado sheekada saasay run miya baabiina abootoyna furo أنا وعاء إثل هاي موقتها جبنا ظهور أو نمك أول أردان عدنا وأرد عرف لعقت هذا كثوة ذنقاذو كدمنا نقت هذا يجبرت هذا وكان لعقت أسبابا warkaas fiican haddoo jiro maxaa mar hore iigu sheegi weysay عد ما يقصوه هايو inaad iska daysid bay ahayd maanta adduunyo sareen gaari lahayn heer sareen noqon lahayn alla ilaahay waa gabadhaydu waa runtaa aabbaha hadduu nin toosan ahaan lahaa gabadhan way ogolaa lahayd hooyo zuuro sheekadan ayaantaan wadin ma u bogin sheekadee hooyo sheekadan alla wadid fariidna ee waaba og tahay hooyo wax ma ogi aniga waxaan ogaha male soo ma ogid ninkan inuu ahaa maajid saaxiibkiis yacni taas macnaheedu waxaa waaye dadka hortiisa inaa isku raacraacdaan soo ma ahan maxaa ka macnaa dadka waa hadal badan yihiin hooyo dadka ma oga inuu ninkaaga saaxiibkiis yahay teeda kale xataa walaalkiis hadduu yahay ma aha inaad raacraacdo ma fahante maama xaraam arag waxaan haysta ayaa iga badan masiiba ana mid haysta ayaa igu filan ba oo masiibada ku haysato hadday dadka ku dhacdo ma waxay samaynayaan ninkii saaxiibkiisa ay raacraacayaan saas miya hal waxaan kuu sheegaa annaga waxaan nahay dad sumcad leh sumcadeennana ha ku ciyaarin ma fahante maxaa dhacay dad baa wax naga sheegay wallaahi runta haddii aan kuu sheego gabadha masaakiinta dhibaato ayaa haysato qalad aa ka fahamsan tahay zuura saad moodaysid ma ah waa gabar nadiifa ninkeedaa dhintay iminka kuma tala jirtid miya inaad meherka dib u dhigto maya kuma tala jiro aniga personal problems ay haystaan marka aniga saaxiibkay aan adduunka ugu jeclay soo u dhintay qalbiba ma haayo midda kale aniga nin iga fiican ayaad istaheshaa aniga adiga maba kuu qalmiba runta haddii aan kuu sheego iminkaad go-aanka soo gaadha miyaa hadda intaanan guur iyo waxaas uusan dhicin aan kuu sheegaya ila haboonaatay hadhow waxba ka qabasho ma leh ma og tahay dhibta aan ka soo maray aabbaha iyo hooyada inaan kaa dhaadhiciyo waa fahmi karaa se ii necab yihiin indhahoodan ka arkaayo waa runtaa waxa waaye waalidka kor waayeel wada indhaa la yidhi hore ayay ka fahmeen inaan adiga kuu qalmin aniga maxaad ii tiri waan ku jecelahay adaa igu yidhi jacaylkan ku qabo biyaa iyo badduwa midna ma maydhi kara saas maan ku dhahay aniga haa iyo wax kale ka badan ayada odhan jirtay waa macquul macquula maxaa macquula ii sheeg bal waxaa waaye marmarka qaar anigoon ka fiirsano hadal iska dhahaa hadhowna waa ka shalaaya miyaad ka shalaynaysaa inaad tiri hadallada markaa iminka maya saas kama wado aniga runta haddii aan ka hadlo adiga kuuma qalmo dabaqadeeda waa hooseysa adigana gabar fiicanaad tahay marka faraatigan aniga keyga jeebkaan gashta adigana kaada inkastoon 60 kun ka soo bixiy iska hayso adaa ka qiimo badan aan waayahay aan sii soconno anigu keligay baan sii joogaya iska tag adigu hadda yaa ku geynaa guriga markaa dhow ma imika naxariisid kaa gasha oo aad isaga ka dhigayso qof wanaagsan keligay baa joogay iska baxdo okay saas day tahay waxyaabahan salarkan iyo waxaan oo dhan isku xaq kow dheh qayraan isku ognahay waa sii soconaa waraaya duqa bal fahamsii waxa meesha ka dhacayo aniga waxaan fahamsanahay ilaa hadda ma jirto waxaan kaloo la yaabanahay aniga xukunkayga markii la soo gaaro mar walba waxaa leedihiin dib ayaa loo dhigoyaa wuxuu dib ugu dhacay sababaa jirto annaga dadaal nooma yara laakiin maxkamadda dib u dhigaysa taas waaye war maxaa ii samayseen aniga mar walba arrinteeda
maxay dib ugu dhacaysaa taasaa fahmi lahay wixii daaha xaajiyow khayra ku jiraa la yidhi maxkamadda inaad dambiilo tahay caddayn hadday u haynaad mar hore ku xukumi lahayd laakiin ilaa hadda caddayn ma hayso marka arrintan dib u dhacaysa in lagu soo daayana waa iska macquul niyadda khayr u sheeg maxaan khayr u sheegaa wax ilaa hadda ii qabsoomooye ma lahan inaan iska aamin ayaan ku qasbanahay ilaaha taladan haayeen ilaahay subxaana qaadir ee arrintaa kala furfuray welwelin hooyadeeyay wax kastood u baahan tahay waa heli doonta iyo weliba wax kaloo siyaado ah suurana waa ogtahay siday u jeceshahay ninkeedee asalaamu calaykum calaykum salaam sodohdeen waa joogtaa maanta haa inaan maqantaa aragnay annaga waa iska sii cunnay waa iska sii walaashaa maxay haysaane alxamdulilah haye waa sidaan kuu sheegay way fiican tahay nabadeeda iska daa iyadaa iloobaysay adduunkaana ilmowsiinaaye haa adduunkaa hilmaamsiinaya adigu waa u baratay laakiin walaashay ninkeeda ayay aada u jeceshahay haa abaabiina lacagti makuu sheegay maxay tahay lacagta lacagti karfanti iyo taydino oo adiga maxaa qabatay maxaa anima heesaaye waa qaylinaaye waa babarooranaaye maxaan amiilowda taas war weligaa khayli jirtay taas wax cusub miya walaashay inaad ku qanciso oo ku raaligelisay aad u timid raaligelis maxaa ka raaligelinaa markaan raaligelinaaye walaasha markay hooyadeed dhimato keliyahaan ku qancinaa taasaa waaye waa runta hooyadayba haddana usoo jeesatay inaad disho waaya lacagta meeqa waaye 500 gini yee ka yaraanin 500 gini sabab waxoo dhan ma annaga iibsan ii sheeg maxay tahay doohinti iyo waxa aan sameeyey weligay qof nool hataa intaas magu ooynin ma fahanta adiga anayaa qaliil adiga waxaan ku weydiinaya lacagta ma jaabkaada ka baxaysaa mase waxaad doonaysaa inaad 2 shilin jaabka ka gashato asalaamu calaykum subax wanaagsan yaa inta fadhiya hooyooyinka hooyadood hooyadan adduunka ugu jeclaa ahaa maamiina tahay subax wanaagsan wanaagsan ma ku jirtaa zuura kuma jirto meeshii aadama kuu sheegtay walba iima sheegin xilligay imaanaysa laakiin waa ogtaa male ma ogi seex male hooyo waxaa u ballansaneen maxaa ku dhacay waaya taleefonkaygan ka wacaya u sheeg haddaa is aragtid igu salaan isii gacan haya maama hooyooyinka hooyadood waa ku salaan mar labaad waa yaab laakiin inay ku jirto amaraynaya waaya hooyo dhib male asalaamu calaykum yaa rabbi kanna goormuu gabarteyda ka fogaanayaa waabuu nacay wejigiise istakfirullah kanna intoo ilaahay noo keen haa fariid ma joogtaane guriga maa joogtaa maya ani weli waa joogaa gurigaan joogaa ya hooyo baan ku tir waa baxday maya ha waa runteed aniga koraan jiray dharkaan iska soo babedelayo waxay u malaysay inaan baxay moog tahay mana u sheegin inaan kor saaranayo haa waa run wallah khayraas ku ognahay dhowaas maqlayn haddii alla yidhaha insha allah waa sheekaysa doonaa haya abo macane saas maxaa u yeesha hooyo waxaan rabin inuu kula kulmo gabadheedii warkiisaaba nagu batay kaasan ma joogta maxaa u dhahay markaa muxuu kaaga daba soo daba noqonayaa gurigaa maajid ugu yaalo hadda iyo kowa haddana hooy macanto hadda 1 iyo 2 iyo 3 aan ku leeyahay 2 naagooda gurigaan degan maxaa nin ajnabi keenay nin ajnabi ma ahan waa maajid walaalkiis oo kale maajid waa dhintay ma dhiman qalbigayga ayuu ku nool yahay laakiin taas ma aha nin ajnabiya inuu guriga noo soo galo teeda kale walaalkaa khaliil hadduu maqlo waa qaylinaa dhibna waxaa noogu filan naagi laguu qabi jiray hooyo hooy ani qof weynaan ahay wixii aan rabana waa aqaanaa mid iga dhagayso aniga haddaan wiilkaas kugu arko adoo la socoto ama banaanka la taagan aniga adiga waxaan kala nahay cir iyo dhul ismana sheegano ma fahantay anoo da'daana mana rabo in ceeb magaalada la iimarsiiyo maxaa waa hadalka ku hadlayso hooy macaan aniga warka iga dhagayso cagtii joogsan weys marbay ceeb la kulantaa maligada bismillah bisinka bismillah adiga bisinka hala qabto macnaheed hala isbooba miya idageysta waxaan idiin sheegaa aniga walaasha aadaan noo kala fogayseen khayrkan iyo waxaana cunayseen masaariif ayda bixisa waaye sida aabbaha oo sheekadan u keena waa noo dhamaatay arkana fiir adiga halka ciyaal suuqa meelaha wareegi jira ma hayno adi ma ahayno ninka boosoonooyinka qodi jiray oo alaabta iyo waxa qurunqurunka soo bixi jiray ala 300 bay qaataan oo gini ciyaar mood laa ilaaha illa allah anaaba 3 cidood dhar ku soo dhaq 3 gini ku qaadan karee aniga hal meeda maalintaan duugaan ku dhahay waa taajir ayaan ku dhahay waa yabe
adigaaba karfan madaxa ku saaran tahay hadda maxaan qaban karaa bal ii sheeg walaalay maxaan qaban karaa qabanka wuxuu qaban lahaa nin ragaateen wax walba maxaan qabanaa aabbaha iyo hooyada ku dheeleyne waryaa aniga waxaan ku dheela malaan kure haddii ayada shaqo ku diida anaa shaqo fiican ku siihayo anaa la shaqeeya maydka maan kula duugaa mase aniga qaybta dhaqista ayaan samaynayaa adiga wax saas lagu dheefi maa adiga xisaabaad ii noqonaysaa dadka dhintaa ii tirinaysaa dad sad intaasoo kale wax kaleba oo ku sorota ma jirto adiga intaas la ii qabo adeer adiga iga aamus bal waa inaa iga aamustaa aniga markaan wax duugaa iska dhaaf carrada xataa waa ka cabsa haddaa cabsanaysid oo midadka aad ka cabsanaysid okay nin ragaata isdabare adeer hadda bal xoogaa ii fiiri bal xoogaa cunto aan soo gatay ileen waa iga dhamaysaan cuntada meesha taale uusaa lagu yiri waraaqan shirkaaga intuu dhayaan fiiri asaarabtaa miya inaan lacag aniga inta ku siiya badal kale ku cunto adeer hadda adiga lacagta aa shaqayso intee geysaa ii sheeg yah waa duugtaan ku yiri haddaa dhintana waa laygu daba duugaa zuhra ilaa goormeesaanu murge ma ii sheegi kartaa sababta adiga masar u joogtid xoolahaagana ay meel kale uga xayiran yihiin fawsiya waa la socotaa daruufahayga murugta qofka bini'aadanka qalbigiisa ay ku jirto ama inta joog ama xagga jar ninkayga waa jecelahay kamana ag fogaan karo ninkaaga waa dhinta zuhra allaha u naxariisto hadda waxaa loo baahan yahay adiga xoolahaada mustaqbalkaada danahaada inaad ka fikirto wixii kuran inaad samayso wax kasta waa isku dayay laakiin waa samay waaye okay maxaa kugu kalifaya xoolahaadii oo meel ku dayacan adiga inaad meeshaan fadhisid ma ogtaha fawsiya waxaan ku fikiray ganacsigayga oo dhan inaan masar usoo wareejiyo ayaan ku fikiray haddii ay saas tahay suura marka hore maxaa iigu sheegi weysa waxaan dhan intaana inta usoo wareejin in meeshaas aad rabtid inaad joogtid adiga muhiimaddu waxayd markii hore inaan halkaas maajidkaaga dhawaado haddana ganacsigayga soo wareegsaday wax dhiba miyaa jira okay hadda waxaa i fahamsiisaa waxaad damacsan tahay shaqo maa dhaafi rabtaa sidaad la socotaba shaqo ma dhaafayo okay marka see damacsan tahay aniga wax ma fahmoy waxaan ka fikiraya hadda inta aan xaro cusub ka furo oo ganacsigaygu aan Beirut ka soo wareejiyo waxaana ka rabaa arrintaas inaan iisoo kala wareejiso adigu soo wakiilkayga ma tiid amarkaaga maan diida waa baxa hawsha xagga anaa soo kala tuuraayo wanaagsan zuhra wanaagsan oo waan waa ogaay inaan meeshaan joogtid oo aan kaa helayo xaaladaada ka waran adiga aniga arrinta nolosheeda waa qariban tahay waxaan kore horta maajid bal faataxa waa aqri aniga iyo nurhaan waa isdaynay nurhaan yaa la dhahaa maxaa dhaca ma ilowday gabadha aan qatubtan guursan rabay iga raal awniyo labadan maalmood si kalaan ahay baa maskaxdeedu ma joogto maxaad saas u yeeshay gabar fiican ay ahayd maxaan sameeyaa zuhra waxaasoo dhan adaa sabab u ah aniga miyaa u sabab ah haa maalintii miyay naga xumaatay ayna isu keen arkaysa labadeena oo isla joognaa taa sabab ma aha sababta ma ii sheegi kartaa sababta adiga waa zuhra adigaan ku jeclaha aniga jacaylkanna ma aha midaan hadda bilaabay maalinta ugu horraysan indhahayga ku saaro oon baabuurka ku soo dhaweeya si xunaan kuu jeclaada zuhra
markaas ilaa hadda si xun aan kuu jeclahay haddii uusan maajid ku guursan lahayn si walbay noqoto waa ku guursan lahaa aniga markii lagu guursadan dhowr gabdhoodaan shukaansaday murhaan ayaa ugu dambaysay ayadina waan isdaynay sababtoo adigaa niyaddeeda ka bixi la'a anigana maajid ayaa niyaddayda ka bixila anigaba maajid niyadduu iga taagan yahay laakiin waxaan hubaa labadayna haddaan iska soo ag dhowaano maajid murugtiisa inaan iska daaweyn karno maxaad kala jeedaa maadaama ani adiga baan maajid jecelnahay waa inaan iska soo ag dhowaanaa waxaan rabaa inaan ku guursado guur ah haa guur maxaa aniga nin aan maajid ahayn niyad maba u hayaba maxaan u sheegayaa aniga nin ma ihi macnaha waxaan ka wada ani nin shisheeye ma ihi maajid marxuumka saaxiibkiis qaaligaan nahay marxuun ha dhihin marka hore horta waa run dhabta waa inaad ku noolaataa maya maajid ma dhihin qalbigayga ayuu weli ku nool yahay warheedhe gabadhii kuu mehersanaydna waad ka tagtay oo waad cidlaa dirtay tii kalena cidlee ku dirta hooy waa i dhasho waa i soo korisa haddana jabkayga ku raaxaysoysa horta maxaan soo wadaa ma og tahay oo waaba wanaagsan tahay gabadhii wanaagsanayd iskaga noqo kuu mehersanayd taasaa fiicnayde saasaa arrintuba ku dhammaanaysa waxaana dhan mushkiladood ka baxaysa hooy adigana sug warka aan kala helnay sewa tiriin camal girr bay siin aniga nuurhaan ma wada sheekadeeda war taaheedhe waabaad og tahay ninkeediba weli ka fakeraysaa hooyadeedna waabay ku dhacab tahayba habarta madaxa afargees kale warkeeda maa sheegaysa adigana inta yaroon gabadha qabuuraha iyo geenaya si qaldanayba ii fahamtaba no waa i urisay laakiin haddaan si toosa gabadha uga doonana warheedhe miyaan adigu odhan islaanta xagga xuska duqda qac waay laakiin anaa ku aqaano waxaan leeyahay hinda umay hooyo gurigaaga si sharaf leh albaabka aan ka soo galo dariishada maraba inaan ka soo gale oo heedhe miyaana gabadhan inay qalbigaaga ku jirin oo ninka la jecesha ma laga yaabaa intaasan ka warwarayaan islaanta kama hadlayo hooyo wiilkaaga waa weynaada marka adiga saad duntaan u tulaysid maaragtay anigana waxaad igu hadlaysaa ciddaas gurigooda anigaa dhex gelaayo waa gelaa waa ka baxaa